السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa lagu tiriyaa Anas mid ka mid ah rag ganacsatada ah ee ugu taajirsan dalka Morocco. Sanadkii 1988 aasaasay shirkadiisa dhismaha ee lagu magacaabo Adduxa. waxay majalada Forbes Anas ku dartay liiska shakhsiyaadka ugu hodansan dunida, ayadoona ku tilmaamtay ninka saddexaad ee ugu taajirsan dalka boqortooyada Maghrib. waxay Forbes sheegtay in hantida Anas gaarayso $1.3 bilyan. sidaas daradeed Anas wuxuu ka mid yahay taajiriinta ugu muuqdheer qaaradda Afrika. wuxuu Anas 16 May sanadkii 1957 ku dhashay magaalada Fas ee dalkiisa Morocco. Anas ayaa bartay asaasiyaadka tacliinta oo wuxuu dhamaystirtay waxbarashada dugsiga dhexe, laakiin wuxuu ka haray uusan bilaabin dugsiga sare. dhankalena aad uma danaynin waxbarashada. aabihii wuxuu isku dayay dhowr jeer inuu wiilkiisa ku celiyo xarumaha waxbarashada, laakiin dhammaan dadaaladii Alxaaji Cabdisalaan waxay ku dhamaadeen fashil, taa oo aakhirkii Xaaji ku qasabtay inuu wiilkiisa ka dhigto gacanyaar asiga la shaqeeya. Anas ayaa ka faa'iideystay aqoonta aabihii ee dhanka ganacsiga, wuxuuna bartay xirfadaha aasaasiga u ah ganacsiga sida abuuridda mashruucyada ganacsi iyo qaabka looga hortago mashaakilaadka ganacsi ama loo xalliyo dhibaatooyinka ganacsi. waxaana Anas u suura gashay inta uu la shaqeynayay aabihii in uu aruursado xogaa lacag ah, kadibna uu asaaso shirkadda dhismaha ee Adduxa, isla markaana uu hormariyo shirkadiisa cusub. sidoo kale waxaa Anas u suura gashay sanadihii gudaheed inuu ku xaqiijiyo guulo mug leh, maadaama uu xukuumadda ka helay mashruucyo badan oo lagu dhisayo xarumo ganacsi. dhanka kale wuxuu xukuumadda ka qaatay qandaraasyo dhismo oo soconaya sanado badan, isla markaana dadka danta yar loogu dhisayo guryo. Anas ayaa helay mashruucii dhismo ee ugu horreeyay, isla markaana guulaysto asagoo mashruucaasi ku dhisay guryo gaaraya 2,000 oo aqal, una dhisay shaqaalaha mushaarkooda oo hooseeyo, ayadoona mashruucaasi uu maalgeliyey boqor xasankii labaad ee dalka Morocco. wuxuu Anas helay sanadkii 2005 qandaraas mashruuc dhismo oo ku kacay $1 bilyan, asagoo guryo qurux badan u dhisay qaar ka mid ah dadweynaha Morocco. qandaraaskana dhismo kadib, Anas waxaa u suura gashay inuu galo suuqa dhismaha ee caalamiga ah, asagoo ka bilaabay mashruucyo dhismo dowladaha khaliijka, gaar ahaan Imaaraadka Carabta. dhanka kale Anas ayaa gudaha dalkiisa Morocco ka hirgeliyey 2 warshadood oo sanadkii soo saara 1.6 milyan oo tan oo shamiito ah. intaa waxaa u sii dheer oo ka dhisay gudaha dalalka Cameroon, Gabon iyo Guinea warshado shamiitada soo saara. intii u dhaxay sanadihii 2015 ilaa 2016 shirkadda waxaa ku dhacay dhibaato maaliyadeed, taas oo shirkadda kolkii dambe ay ka soo kabatay, isla markaana wax yar kadib qiimaha saamigeeda kor u kacay. wuxuu Anas sanadka 2013 gudaha Ivory Coast ka dhisay warshad dhismaheeda uu ku kacay adduun dhan €12 milyan, taas oo sanadkii soo saarto 120 milyan oo kiish oo shamiito ah. hadda shirkadaha ganacsada Anas waxaa ku xigeenka madax fulinta ka ah inantiisa